hooyooyinkii way dhiban yihiin sidaasoo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambaa noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno hana laga qaato waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah gobolka Togdheer fal alxandara oo isugu jira kufsi iyo dil iyo habinimadii xalay gudaha magaalada Burco lagu geystay marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Burco iyo hooyo haysata 3 caruur oo kalinimo korin jirtay Naasir Cali Cabdilaahi oo ah wiilka la dhashay marxuumadda ayaa nooga waramay sida falku u dhacay goorta ay ogaadeen dilka loo geystay marxuumadda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiideynaa family-gayga iyo xaafadayada iyo dhammaan qoyskayga geerida ku timi walaashay Ugbaad Cali Cabdilaahi oo gacan ka xaqdareyn ku dishay xalay magaalada Burco Ugbaad waxay ahayd hooyo ka tagtay 3 caruur oo wiilala shalay fiidkii ayay ka kaxisay guriga caruurta laba ka mid ah guriga ayay degeysay xalay waxaan sugeynay inay guriga u soo hooyato adigu waxaan weynay xalay tolo maqnaashiheedaas waanu tagnay saaka subaxnimadii markuu saaka waagu bariyay waxaanu ku war helnay in gabadhaas la dilay meedkeedina yaallo halkaas ninka dilay oo ah eedaysanaha hadda ku xidhan saldhigga dhexe Burco ayaa saldhigga iskeeyay kadib markii uu dilay gabadha kufsiina u geystay saldhigga ayuu tagay wuxuu gabadhaasaan dilay meedkeedina halkaas u yaallaa sidiiba ciidanku ku raaceen intay isagii warbixintii qiraalka hay'adkii kaga qoreen bay israaceen waxay tageen goobtii ka dhacay falku inta kadib ciidanku cadeymahoodii iyo sida wax u baadhayeen ayay waxaan ku wari u hawlgaleen waxay sameeyeen isagii bay kaxeeyeen wuxuu geeyay gurigii aynaantu ku dhimatay kadibna ciidanku way iskala qaybiyeen laba qaybood isu qaybiyeen qaybna isagii bay soo celisay saldhigga qolka dilka la geliyay qayb kalena waxay qaaday meedkii oo waxay geysay isbitaalka weyn kadib markii la xaqiijiyay inay gabadh inantu meed tahay waxa la geeyay qolka meedka ama talaagada meedka lagu rido muxuuha isbitaalka weyn ee Burco annaga subaxnimadii saaka 7 barkii markay ahayd ayaan ogaanay family-gaygana aniga ugu horagaaday kadib markii shaqada xafiiska aan qabtay ayaa xafiiska aan ka ogaaday qofka la dilay kadibna warbixinta ay soo gaadhay ah in gabadh magaca leh la dilay meedkeedina yaala talaagada dhakhtarka weyn ee Burco halkan hadda hor taaganahay waa halka dilka iyo kufsiga lagu geystay marxuumad Ugbaad waxaana dhinacayga taagan dad kamid ah dadka deegaanka ee gurigan degani waxaad noo sheegtay adigu gurigan aad deganadeen ninka falkan ugu Farduus Axmed Yuusuf la yiraahdaa guriga waan ku jiraa ninkuna bashakoodeedu guriga soo galay waa laga kariyay uu nugula jiray habeenkiina cidina ma joogin gabadhna uma joogin kaligiiba ku jiray seexan jiray anigu laba habeen inta dhowr habeen biiga soo horeeyay anigu 12 soo hoyda habeen badan biiga soo horeyn jiray guriga waan ku soo garaaci jiray isagay ka furi jiray dadna qolkayga iska geli jireen seexan jiray Naasir Cali Cabdilaahi oo wiilka la dhashay marxuumadda ayaa noo xaqiijiyay warar bulshadu saddex marayaan oo ahaa in ay xiriir ka dhaxeeyay marxuumadda iyo gacan ku dhiglaha ninka gabadha dilay iyo inantan wax xiriir oo ka dhaxeeyay hore oo aanu ognahay aniga iyo xaafadayda toona ma jirin de dhacdo adigu de annagana argagax gelisay oo de masiibo ah wax kale aan ku sheegi karamayne islaamka meel ay joogaan ba islaamka madaxweynaha sharafta badan leh inna laga qabto ilmaha caynka ku dhacmaya ee hablaha iyaga suuqa maraya markiiba 7 subaxnimo la qaadanayo lagu hoostilayo guriyo oo lagu kufsanayo lagu bireysanayo inna laga qabto mana doonayno ninkaana waxaanu doonaynaa sida ugu degdega badan leh haddaan hooyo wax dhashanahay waanu ka ooyna waanu ka gubanayna inna loo qasaaseeyo qasaaska islaamka loogu qaado ayaanu doonaynaa ma doonayna inaanu daysano ma doonayna jana lagu qabto in hortayada lagu dilo oo inanta tacadiga xul loo geystay haddaanu hooyanahay waanu ka damqanaynaa meedka marxuumadda Ugbaad ayaa waqti xadirkan yaala qolka meedka ee isbitaalka guud ee magaalada Burco gacan ku dhiglaha ayaa isaguna ku jira gacanta ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer